حسن سلو أحمد حسن مادام عيار الصومالي ويجي كالسعودان مقالنا تورنتو ورئيسي كمان أنا هو نريد هاي أنت أنا نقول بين تورنتو حق شقيسة أورل لي هذا ما كلا سوق عبيو SSUF ومن أول شيء كتا أورل كاسات كشقيسي كل سنة وضع كسويدا مجالس استقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. أورل SSUF وحواي أورل نيرو وطلبة ويكون مدوبين أورل إلى يولواتني سديد أورل gobolada Sweden baxsan xaruntiisuna ay tahay magaalada Stockholm ururkaas uu afar sano jir waay oo dadka xubnaha ka ah ururada xubnaha ka ah 28 urur waay dadkuna ilaa 3,000 oo qof ayaa xubnaha ka ah ujeedada ururka loo aasaasan waxa ay sidii dhalinyaradeena ee macnaha ay dalkaas ay joogaan ula qabsan lahaayeen oo ugu muuqan lahaayeen dhinaca shaqada dhinaca waxbarashada dhinaca dimuqraadiyadda iyo hoggaanka sidii loo heli lahaa bulsho caafimaad qabta oo wanaagsan oo rag iyo dumarba ah maadaama ururkiinu yahay urur dhalinyarada u shaqeeya sportiska miyaad isla shaqaysaan miyaad caawisaan sideed iskula shaqaysaan sportiga idinku sportiska anaga ururkeena waan wada shaqaynaa muddana waan wada shaqaynaynay sanadkan hadda oo 2008 si parallel aan u wada qabanaynaa macnaha labadeena urur baa wada qabanaya oo si siman u wada qabanaya sababta aan sportiska u caawin jirnay aan u caawinana waxa waaye sports waxa waaye wax muhiim oo bulshada u baahan tahay waaye oo dhibaato badan macnaha in meesha dadku isku bartaan waaye meel oo aan qabiil iyo macnaha waxyaabaha badan dhibaatooyinka jira ay kaga badbaadi karaan waaye marka ururkii bacma urur dhalinyaro yahay waxay isu imanayaan ay dhalinyaro yihiin sportska waan ku khasbannahay inaan ururkii uu dhaqaala siiyo sportska la shaqeeyo oo aan dadka isugu yimi oo Yurub oo dhan ka imanaya North America aan dhex galno ururadaas aan isbaranno aan hadafka ururkeenu leeyahay iyo waxaan damacsanay aan dadkii gaarsiino taasaa macnaha keentay midda kale waxaa jirta iyaga naftigooda ururkan sportska ururo kale oo dhalinyaro ah ayaa iyaga naftigooda oo isu tagtay ayaa ku dhex jira kuwaas naftigooda macnaha ururkay ka mid yihiin waa sax 2006 ayaad noogu timid Toronto waxay ahayd markii ugu horreysay oo nisbaranaga iyada waqtigaad noo timidna waxay ahayd waqti ciyaaraha u socdaan 2007 waa naga maqnayd sanadka 2008 aad noo timid taas waxay na tusaysaa inaad timaadid waqtiga ciyaaraha u socdaan marka sideed u aragtaa ciyaaraha Somali Week ay ka socdaa magaalada Toronto ama ka socday sanadkaas 2006 ama 2008 sanadkan hadda sideed u aragtaa fikrad ahaan in dadku xitaa laba meelood lagu kala ciyaarayo laba garoon lagu kala ciyaarayo ciyaartoy badan dibadda ka yimaadeen labadii garoon baa aad tagtay sideed u aragtaa say kula muuqataa arrintaas markaan laba u kala saaro macnaha guud ahaan macnaha ciyaaraha iyo isu imaatinkaas macnaha halkan waxaan u nimaadno bulshadan degan North America iyo waliba England dadka yimaada ayaa meeshaan isugu yimaada waa fursad qaali ah oo dad badan ayaa meesha isugu yimaada marka sababta anagu u nimaadno waxa sidii aan dhalinyarada iyo dadka meesha isugu yimi aan isu baran lahayn oo aan fikir isu dhaafsan lahayn mustaqbalka dad isu baahanaa waana wax aad muhiim ah dadku isu tagaan tan labaad oo ah kala qaybsanaanta iyo qadiyadeeda waa fikir isagana oo aan rabno inaan ka qayb qaadano inuu la midoobo oo arrintaas mid la noqdo arrinta dalkeena kusoo baaba'ay waayo oo aad iyo aad arrin u qaraar ah midaas mowqifka aniga qof ahaan aan aaminsanahay waxa waaye in la midoobo oo ay khaldan tahay haddaan labada kooxood labada dhinac aragnay iyo dadweynaha reer Torontona aad bay ugu muurajabsan yihiin in la kala qaybsanaado waxayna kulli dadku leeyihiin waxaa aad u fiicnaan lahaa siiba dumarka iyo carruurta iyo familada in hal meel ay jirto meeshaasna markaa ay ilmuhu iyo waalidku ay keenaan aad u fiicnaan una economic fiicnaan lahayd xataa dadka wada naftigooda markaan arkay way ku daaleen oo aad bay naftigoodu arrintaas dhaqaale xumo iyo duruuf badan ka haysataa marka arrintaas ilaahay wax ka baryaynaa in midaynta hadda odayaashu wadaan oo hadda aan u malaynaa insha Allah inay meel fiican gaari doonto oo laga yaabo hadda haddii ilaahay idmo in isku meel lagu ciyaari doono labada kooxood oo soo baxa isku meel waxaan arrintaas aniga aaminsanahay inay arrintaas tahay arrin adag oo dhibaato ina ku ah inagoo weliba qurbo joogna oo dalkeena burbursan yahay oo wadamo adag iyo duruufo adag noo yaalin oo familadeena iyo ilmaheena iyo dumarkeena inaan inagii haddana dadka sii kala qaybino marka qadiyadaas ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay noqoto mid lagu guulaysto hadda odayaashu wadaan oo la midoobo oo ay mid noqoto meel walbana saas insha Allah ay ka dhacdo arrintaas marka aad iyo aad baan ugu dhiirigelinayaa in la midoobo waa maasanta haddaan dib ugu noqdo taariikhdaadii Sweden waxaa jirtay sanadkii 2006 inaad ka qayb gashay doorashada heerka koowaad ee gobolka adigoo magaca matalaya xisbiga ah Social Democratic Party
waxma noogu sheegi kartaa waxma noogu taataaban kartaa doorashadaas aad ka qayb gashay arrintaas halkaan markaan imi 2006 macnaha waddankan Canada sababtaan imi waxay ahayd macdama aan u cararayay darajada xisbiga social dimuqraadiga macnaha maamulka gobolka Stockholm halkaan markaan imi talooyin baan u imi iyo halkaan macdama inaga xarunteena North America ay tahay oo dadkeeni faraha badnaa dadka aqoonta lahaa halkaan joogaan bulshaweyntii inaan macnaha ka faa'iideysto oo aan talooyin iyo aan bulshadii aan ka korsadaan u imi arrintaas runtii wax weyn baan ka faa'iiday laakiin xisbigii ayaa sidiisaba laga badiyey oo waa la socotaan xisbiyadu marka ay tartan galayaan marka waxay ahaayeen gacanta midig iyo gacanta midig baa ku guuleysatay qolada socialismka safkaas oo dhanba waa laga adkaaday laakiin muddadii aniga aan ku jiray wax badan baan ka faa'iiday haddana ururkan dhalinyarada arrintan aan wadno kama bixin weli siyaasadda inkastaanaan macnaha si qaawan aan siyaasadda uguma jirno laakiin in daaragtan ugu jirnaa saddex baan ugu jirnaa 4 sano ayaa u dhaxaysa marka doorasho ilaa doorasho marka doorashada soo socota 2000 iyo waxay imanaysaa 10ka haddii ilaahay idmo waxaan jecelahay inaan ka qayb galo inaan rag badan dhalinyaro badan aan diyaarino inaan xataa qaradaadkii waagii hore oo aan ka faa'iidaysano fursaddii muddadaa u dhaxaysana aan wax badan qabanno oo bulshada waasantay Axmed waxaan rabaa arrintii isboortiga ahaan mar kale u noqdo intii ciyaaraha Soomaaliya way ku socdeen ay ka dhacayeen waddankan Canada gaar ahaan magaaladiisa Toronto ilaa hadda ma hayno team ku ciyaaraya magaca Sweden maxaa arrintaas diiday arrintaas way jirtaa waxa waaye dhowr jeer baan damacnay 2007 oo kale team baan soo diri lahayn hadda 2008 xataa waa la damcay waxaa jira dhowr arrimoodaa jira hal arrin waxay tahay aad baynu u kala fognahay Sweden iyo Canada midda labaad annaga ciyaar qabanaa Sweden baan ciyaar ku qabanaa xilli walba waxaan qabanaa bisha July 15keeda ilaa 2 Agosto ayaa la qabtaa sanad walba bacdama marka aan ciyaar qabanno oo dad badan ay noo imanayaan hawsha adag aan ku jirno way noo masaabixi weyd inaan team soo dirno oo u soo dirno Canada u soo dirno taasoo duruufti dhaqaale iyo waqtigii waxaan jecelnahay sanadka soo socda haddii ilaahay idmo 2009ka inay yimaadaan team dhalinyaro ah oo ururkeena ka socda oo hadda aan rabo inaan Google xaaro ururada dhalinyarada oo ka jira Toronto inaan helno macnaha ururada dhalinyaro nacasuma oo dhalinyaradu ay fikirka isdhaafsadaan 10 dhalinyaro ururkeena ka socota inay timaado meeshaan